haddaad ilaahay jeceshahay waxaan ku sheegayaa calaamado lagu garta qofka ilaahay uu jecel yahay ma leedahay calaamihiin gidigiin adoomada ilaahayow iska baarbaara calaamadahan aan idin sheegi doono oo lagu garanayo qofka ilaahay uu jecel yahay jacaylka ilaahay iyo faa'iidadiisa caawar waa inaan kala hadlo gidigeen nafsadayda ugu horeysa iyo nafsadihiina walaalayaal waxaan idin sheegayaa in xusuusinayaa aayad quraan ah cajiib ah aayada ku celceliya mar walba si aan u cayrino nolosheenana uga saarno ibliis laciin la'natullahi alayhi nooma ogol sida iyada ilaahay ayaa wuxuu rasuulkiisa ku dhahayaa subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhahayaa rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni isooraa waxaad ku tiraahdaa ummadaadan dadkan sheeganaya in ay jecel yihiin ilaahay qof walbaaba aan laga xigsan karin ee dhahaya allah jecelnahay ilaahay waa jecelnahay waa allihina abuuray dadkan la kala saari la yahay ka ilaahay jecel ee kan kale waxaad ku tiraahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin calaamada jira imtixaan baa jira fattabi'uni wa in laga hela al-ittibaa' wal-iqtidaa' bir-rasuul sallallahu alayhi wa sallam ma laga helaa rasuulka ma ku dayataa rasuulka ma raacdaa waa calaamada ugu horeysay ugu weyn weeyaan gabadhaada ma jeceshahay ilaahay haddaad ilaahay jeceshahay oo jacaylkaagu dhab yahay ha laga helo ittibaa' inaad raacdid rasuulkaaga ma raacdaa rasuulkaaga ma raacdaa oo dhar xirashadaada rasuulka ma ku raacdaa bise timahaagu waa qaawan yihiin haddii timahaagu qaawan yihiin waxaan ku leeyahay ma aadan raacin rasuulka calaamadii waa lagaa waayey imtixaankiina waa ku dhacday hadday gabadhu jiinis xiran tahay waa laga waayey ma raacsan oo aad leedahay ilaahay baan jeclahay ilaahay ma jeclid wallahi ilaahay inaadan jeclayn hay odayga sidoo kale haddii xilkii iyo mas'uuliyadii loo dhiibay uu dayacay oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid salaada haddii uu dhalinyaradu ka tagayaan oo aad ka tagaysid salaada aad leedahay ilaahay baan jeclahay waxaan ku leeyahay ilaahay ma jeclid ilaahay ma jeclid wiilka hadduu sigaar cabayo qaad cunayo daroogo isticmaalayo maandooriye qaadanayo oo uu leeyahay ilaahay baan jeclahay marka loo sheego uu oynayo waxaan leeyahay ilaahay ma jeclid maxaa wacay sifooyinkii waa lagaa waayey qul in kuntum tuhibbuna allaha ilaahay baa dhahaya rasuulkiisu u soo marinaya sallallahu alayhi wa sallam u sheeg ummadda nabi maxamed u sheeg khaasatan ummadda Soomaaliyeed u sheeg ceeble iyo caasho cawrale iyo caday maryan iyo u sheeg maaragtay ubax u sheeg maxamed iyo faarax nuur iyo cali abdullahi abdurrahman u sheeg intaan hor fadhida adigu ilaahay kula hadlaya soo ma ogid haddii aad ilaahay jeceshihiin rasuulku wuxuu idin leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay rasuulku waxaad ku tiraahdaa isoo raaca anig waa kuma kan la raacaya waa muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn abd munaf sallallahu alayhi wasallam ku salaysa rasuulka isoo raaca waa in iska hela raacid oo rasuulka la raaca si loo raacaya oo loogu dayanaya waxa loogu dayanaya waa in marka hore rasuulka aad siiridiisii barata oo aad jeclaataa jiifkaaga waa inuu noqdaa jiifkii rasuulka allah gacantu waxay qabanayso uu noqdaa islaami muhammadi waa inuu noqdaa wixii hawsha sidoo rasuulku u qaban jiray hadalkaaga waa inuu noqdaa hadal tayyib man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut hadalkaaga ma wanaagsan yahay walaalka hadal fiican ma ku dhaxdaa asxaabtaada hadalada ma wanaajisaa hooyaday aabaha ma u naxariisataa dariskaaga hadal wanaagsan ma dhaxdaa adigu hadal wanaagsan ma isku dhaxdaa marka iyada rasuulka waad raacday waad rumaysay ilaahayna waad jeceshahay waa kaaga marxaati kacaaya laakiin hadii kalimaya man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut ilaahay ayad kale wuxuu ku leeyahay وقولوا للناس حسنا إلهي هذا جعشهي رسول كاغو إن تراعدا أو كديش أو كو نقضا هذا كله جود هذا حرنا يسوالك
ragga iska dhigaysatay maha gaabsatay afka gududsatay sida dawaca dhig soo cabtay gabadhaadan haddaad leedahay ilaahay baan jeclahay ilaahay ma jeclid maxaa wacay rasuulkeena wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi dadka ugu horeeya saddexda ugu horeysa cadaabka la geynayo waa maxay waa gabadha isnimaysa oo ragga iska dhigta iyo ninka iska dhiga waa maxay haween iska dhiga timaha tidca dhagaha durta silsilad xirta codka yareeya isjajabiya sida haweenka iska yeela waa dadka ku qanci waaya abuurkii ilaahay khaasatan gabadhan saraawiisha xiranaysa timaha gaabsan ragga dhex ordaysa aan iska soo celinin ikhtilaadka badan codka waaweyn murqaha leh aadan kala garanaynin hadday sii jeedo ma rag baa mise waa dumar ilaahay jaceylkiisa yaan laga been sheegin إلهي بين لو مش هيك روكسونتين الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكسون يا إيش خائمة دا ظالمة دا الشيء الشدب بدن إلهي بنجعل لحي إلهي واربنا رسولك وكضينا دينتنا أو هدنا بينته إيش إلهي وقرنا يا وكسون يا وما تخفي الصدور يوحلا بيالك كنجرو كاغان سروالك وكدعدعيا بريده قاون عوردي ادكيد استوريلا سروالك ودعيو halkii gaabi la yiri halkii astur la yiri qaawiyay halkii gaabi la yirina hadda dhulka uu xaarayo oo surwaalkii gadaal ka dhamaaday qashinka magaalada oo dhan ururina isbisiiniga oo kale ilaahay ma jeceshahay kulad ilaahay ma jeceshahay bisla soo rasuulkeena اتباع لغا هلو ويان قديجين نفسدي نفسدينوبا waxaan kula dardaarmayaa in laga helo maxay اتباع in laga helo in aan rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi aan ku dayano oo aan raacno laakiin hadii ilaahay waxaad ku tiraahdaa ummadaada haddaad ilaahay jeceshiin rasuulka isoo raaca raacida rasuulka maxaa laga helayaa fattabi'uuni yuhibbukum Allah markaasaa si dhab ah ilaahay uu idin jeclaanaya ilaahay baan jeclaanaya laakiin ilaahay haduuna jeclaada jaceelka ilaahay uuna jeclaanayo mirihiisu waa maxay maxaa laga helayaa hadii ilaahay idmo xalaqadeena xigta ayaan intaasoo dhan ku sheegaynaa astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh